أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دبا جوغلا ميديا على جوغلا ميديا waxaa kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska suuqa kala iibsiga xanta kulamada laga ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda Yurub ugu waaweyn iyo UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League saddexda UEFA ee dhigato UEFA yaasha UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League oo sanadkan lagu soo daray xalay waxaa la wada dheelay kulamo ka tirsan labada tartan ee ugu dambeeyay ee laga warsugayay maadaama semifinal ay wada joogeen dhammaan tartamada Yurub habeen hore ayaa la soo gabagabeeyay UEFA Champions League heerkiisa semifinalka waa tii ay Real Madrid ay ka soo baxday dhigeeda Manchester City sidaasna final ay ku aadeen labada naadi Real Madrid iyo Liverpool xalayna waxaa mar kale laga dheelay horyaalada Yurub labada horyaal haatan mid lagu soo daray iyo midkii Europa League ahaa naadiyaasha kale ah Frankfurt iyo West Ham ayaa wada dheelay Frankfurt ayaana hal iyo eber ku adkaatay sidaasna Frankfurt oo kulankii horeba gool wadatay laba gool iyo gool ahaa ayaa haddana hal gool iyo eber ku adkaatay aggregate 3 gool iyo gool ayay ku soo baxday sidaasna waxay ku tagtay finaalka UEFA Europa League sidoo kale Rangers ayaa iyadana soo baxday maadaama ay 3 gool iyo gool ku garaacday dhigeeda Leipzig kulan ka tirsanaa UEFA Europa League halka kulankii horena RB Leipzig ay hal gool iyo eber ku soo adkaatay aggregate-kana uu noqday 3 gool iyo 2 gool oo Rangers ay gool ku qaadatay sidaas ayaana UEFA Europa League lagu soo gabagabeeyay heerkiisa semifinalka waxaa kaloo la dheelay UEFA Conference League oo wada dheelay naadiyaasha kale ah Roma iyo Leicester City Marseille iyo Feyenoord waxaa dheelay naadiga Roma oo barbardhac kulankii hore la soo gashay naadiga Leicester City kadib gool iyo gool ay ku soo kala baxeen waxaa la aaday garoonka Roma kadib markii ciyaartaas loo baaday ciyaar kale waajibna ahayd maadaama lug labaad ay jirtay Roma ayaana isla markaas ku soo badisay garoonkeeda hal gool iyo eber sidaasna waxay ciyaartu aggregate-keeda uu noqday 2 gool iyo gool oo Roma ay ku soo baxday kadib markii kulankii hore hal lagu galay Marseille ayaa sidoo kale iyo Feyenoord wada dheelay garoonka Marseille ayaa la tagay waxaana Feyenoord ay ku soo dhaweysay garoonkeeda laakiin ciyaarta waxay ku soo dhamaatay sidii loogu talagalay oo ayna ku bilaabatay ciyaarta 90ga eber laakiin natiijada waxay aaday kulankii hore maadaama ay Feyenoord 3 gool iyo 2 gool ku adkaatay kulankii koowaad ee UEFA Conference League sidaasna final ayay ku tageen Feyenoord iyo Roma waxaan ka codsanayaa haddii daawashada muuqaalkan aad ka mid tahay dadka daawanayo please subscribe like saar si ay u gaaro asxaab badan aad kaga mahad celinaa daawashada muuqaalkan hore u sii soco commentigana la wadaag wixii akhbaar ah sidoo kale maxaa laga yiri kulamadaas ilaa iyo kulankii habeen hore laga dheelay UEFA Champions League oo ilaa haatan laga hadalhayo qaaradda Yurub ilaa Afrikada wararka ka soo baxayo Talyaani ayaa sheegaya in Jose Mourinho uu ilmeeyay guushii xalay kadib markii uu AS Roma uu ku hogaamiyay finaalka UEFA Conference League Jose Mourinho ayaa wax laga weydiiyay kulankaas iyo wax oo ka filayay laakiin wuxuuba la baroortay finaalkii markuu gaaray ciyaarta ee soo dhamaatay waa uu ilmeeyay kadib markuu gaaray finaalkii ugu horeeyay UEFA Conference League oo na gaarsiiyay naadiga AS Roma ayaan finaalkaas gaartay maadaama ay tahay naadiyaasha ugu horeeyay ee ka mid noqdo UEFA Conference League finaalkiisa Jose Mourinho ayaan sidaas ku ilmeeyay laakiin wuxuu gadaal dambe wareys laga qaaday oo sheegay in uu wax laga weydiiyay kadib markii la dhahay maxaa ka filaysaa finaalkaas laakiin wuxuu ku jawaabay hadiiba aan finaalka
sii ahaado macalinka AS Roma waxaan guul ku hogaami doonaa Roma, taas oo ka dhigan inuu ku kaftamay maadaama ay Tottenham Hotspur final oo geeyay sanadkan bilowgiisa kadibna finaalka markuu geeyay ay buriyeen si oo la kacay asagoo guulo wato ayaa la ceeriyay. marka Roma wuxuu su'aashii la weydiiyay oo ku soo daray arintaas oo ah in haddii finaalka uu si macalinka si ahaado oo u qaadi doono UEFA Conference League. sidoo kale Jose Mourinho anoona ku godol bixin oo ku guda jiro arrimaha Jose, koox kale iyo finaal Jose Mourinho ayaa waxay gaartay UEFA Conference League maadaama uu finaal kale Yurub oo gaaray kooxdiisa. Jose Mourinho ayaa koox badan hore u soo leeliyay taas oo ka dhigneed in koox walba uu tago xeel ciyaareedyada ugu horeeya uu finaal ama koob u qaadi jiray. taas ayaana wax asi u degsan bitigiisna maadaama uu kooxda uu markuu tagaba maalmaha koowaad ama sanadka koowaad uu koob uu qaado. Jose Mourinho ayaa lagu xantaa in sanado kadib ama 2 sano kadib uu burbur iyo fatahaad oo ka furo naadi oo markaas uu joogo. Jose Mourinho ayaa laas ugu bixinaa ciyaartooyda kooxda Feyenoord kadib markii ayaa celebration iyo dabaaldeg iyo qeyl dhaamo iskugu dareen kadib markii ay ciyaarta soo gabagabowday ayna finaalka u gudbeen UEFA Conference League. qosol iyo ilmo iyo dabaaldeg ay iskugu dareen ciyaartooydii u baxayeen Marseille garoonka Marseille ayuuna kulankaas ka dhacayay, waa la yaabay wax ka dhacay. sidoo kale waxaa dhacday ciyaartooyda iyo taageerayaasha kooxda Frankfurt ayaa iyadana sidoo kale si la mid u dabaaldegtay qeyl iyo buuqna iskugu dartay naadiga West Ham kadib markii cariga Jarmalka lagu ciyaarayay ay hal gool iyo eber oo adkaatay naadiga West Ham. ciyaartooydaas oo Frankfurt ayaa kulankaas waali ka dhigeen. waxaa kaloo jiro oo la hadal haya wali arrimihii kulankii Real iyo Manchester City. Pep Guardiola ayaa wali calaayo oo leh ma dhici doonto mar kale, laakiin waa wax hore u soo jiro 6 sano Man City oo joogo wax UEFA Champions League oo san qaadin. xitaa waxaa lagu xantaa in wax gool aysan ka dhalin UEFA Champions League finaalkiisa xitaa. Jose Pep Guardiola ayaana sidaas ku dacaloonayo, laakiin dhigiisa Carlo Ancelotti ayaa la weydiiyay su'aal maxaa ka caawiyay arinta in comeback ku sameeyay Manchester City. sidaas ayuuna wuxuu ku dhahayay ma ahan wax aniga sameeyay, laakiin ciyaartooyda waxaan u daaray comebackyo ay sameeyeen ciyaareedkan oo ilaa 8-9 gaarayaan. sidaas awgeedna waxaan u sheegay inay caawa dhiman tahay oo ay sameeyaan waxa u dhiman, sidaasna ay comeback ku sameeyeen. mana ahan wax anaga sameeynay, waxaana caabiyo oo kaliya taariikhda naadiga ay ku leedahay UEFA Champions League. sidoo kale waxaa la hadal hayaa Super Karim Benzema oo taariikhda isku qoray tii shakhsiyeed iyo tii guud ahaaneedba marka loo fiiriyo UEFA Champions League. sidee ayuu isku qoray taariikhda shakhsiyeed ee UEFA Champions League ayuu dhinac ka soo galay dhinaca gool dhalinta markii loo fiiriyo hal ciyaareed goolasha la dhaliyo. halkuu kaga jira Karim Benzema hal ciyaareed goolaha la dhaliyo tartanka UEFA Champions League. waxaa ugu horeeyo oo taariikhdaas koow ka sanado badan galay kaalmaha Cristiano Ronaldo ayaa booska koowaad ku jiro oo 217 gool leh hal ciyaareed hal season in gool badan ku dhalay. sidoo kale 100 gool 10 gool 20 gool hal ciyaareed wixii lagu dhaliyo UEFA Champions League. CR ayaana ugu badan oo dhali hal ciyaareed hal ciyaareed oo hal season 2013-14 ayuu dhaliyay 17 gool. sidoo kale isla Ronaldo ayaa rikoorkaas haddana mar kale haysto oo ciyaaryahanka ku xiga
maadaama uu 16 gool dhaliyay seasonkii 2015-2016 isla Ronaldo ayaa haddana mar kale dhaliyay seasonkii 2017-2018 15 gool. 15 gool waa iskaga daba imaaday. Waxaa hadda kula midoobay Lewandowski oo sanadkan dhaliyay 2021-2022 15 gool. sidoo kale xidiga aan la saadaali karin Bononiga maanta oo soo bandhigayo Karim Benzema ayaa xilli ciyaareedkan isagan dhaliyay 15 gool 2021-2022 xilli ciyaareedka lagu magacaabo. laakiin Benzema ayaa weli Janis ka haysto Lewandowski maadaama isku goolal ay yihiin 15 gool iyo 15 gool ay leeyihiin. xitaa CR oo kaalinka saddexaad ugu jiro 2017-2018 oo dhaliyay 15 gool. haddii uu dhaliyo finaalka gool ka mid ah wuxuu soo tiigsan doonaa kaalinka saddexaad goolasha shakhsiyadeed ee hal ciyaareed la dhaliyo. sidaasna kaalinka saddexaad kusoo gala. haddii 2 gool oo dhaliyo waa muqsii jirto kaalinka labaad oo Arsena CR ayaa ka badan. haddii 3 ley oo dhaliyana waxa waaye kaalinta koowaad ayuu la wareegaa maadaama 18 gool oo tagaayo kulan aan baaqo finaalka. aad mahadsantiin. fadlan haddii aad halaan nala soo gaartay subscribe saar like dheh si uu gaar asxaab badan. waan mahadcelinaa garab istaagteen. haddana sii share garee like dheh si uu gaar asxaab badan. aad ka mahadcelinaa. Karim Benzema anigoo kan sii bixin sidoo kale rikoorka ciyaareed uu goolasha badan tartanka UEFA Champions League guud ahaan xidiga ugu goolasha badan wuxuu ka soo galay asina top 4ka kaalinta afaraad. kaliya waxaa ka horeeyo Cristiano Ronaldo oo kaalinka koowaad ku jiro kadib markuu dhaliyay 144 gool halka Messi oo booska labaad soo baxsaday oo soo cariirsaday oo dhaliyay 125 gool halka Lewandowski ay 86 gool oo asigana dhaliyay. Benzema ayaa asina sidoo kale dhaliyay 86 gool halka Raul oo kaalinta shanaad oo ku jiro oo dhaliyay 71 gool. Karim Benzema ayaa weli Janis kale haysto oo ku gali karo kaalinta saddexaad maadaama 86 gool oo dhaliyay tartanka UEFA Champions League. haddii finaalka hal gool oo ku darsado wuxuu galaa kaalinta saddexaad. sidaasna wuxuu ku tagaa 87 gool. wixii ka badan waxa waaye booskaas asaa xureysanayo. walow Messi iyo Ronaldo ay boqoleysii marayaan. Ronaldo oo 144 ah 141 cafwan Messi oo 125 ah. sidaasna waxaa kusoo dhamaaday hadal heynta. walow waxyaalo badan iska jiraan laakiin hadal heynta iska badan yihiin. muuqaalka inuu dheeraado diidanahay laakiin waxaa kusoo gudbi doonaa warbixinadeena ugu dambeeyay inay soo wadno insha Allah hadduu Ilaahay raali ka noqdo. sidee loo kala ciyaari doonaa finaalada qaaradda Yurub ka dhici doono bisha May ee hadda aan ku wada jirno. UEFA Europa League ayaa ugu horeeyo oo la dheeli doono UEFA Europa League 18 May. marka 18 May waxaa dheeli doono UEFA Europa League labada naadi kale ah Frankfurt iyo Rangers oo ku balansan finaalka UEFA Europa League. sidoo kale isla bishaas 25keeda waxaa la dheeli doonaa UEFA Conference League oo u dhaxeeyo labada naadi Feyenoord iyo Roma. UEFA Conference League ayaa labadaasna final isku wada imaadeen. halka sidoo kale 28 May kulanka la wada sugayo kulanka aan marnaba la saadaali karin kulan la filayo in uu noqon doono kulan waali ah. kulan isleeyahay kulankii amuu noqdaa hore oo soo daawanay 2018 naadiyaasha kale ah Real Madrid iyo Liverpool ayaa mar kale isku qaban doono horyaalada qaaradda Yurub 28 May UEFA Champions League finaalkiis wuxuuna ka dhici doonaa Paris. sidaas ayuuna saddexda finaal ee qaaradda Yurub laga dheeli loo filanaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena. maalin wanaagsan jimca kariim. aad mahadcelinaa daawashada muuqaalkan. hadduu kusoo gaaro like saar sii share garay. aad u mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.